بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. waxaa ku tiraahdaa nebiyow xaasaskaaga iyo gabdhahaaga iyo muslimiinta gabdhahooda dhammaantood ha ka soo raariciyaan korkooda jalbaab. arrinkaas ayaa dhowaan badan in la gartaa oon la dhigin. wa kaana allaahu ghafuuran raxiima. alla weynaa markuu arrinkaa idin amraayane xijaabkaas weyn waa quruxdiina, allana waa dhaafid badna naxariis badan. haweeneyda quruxdeeda waxaa ku jirto inay makansataa inay gurigeeda joogto, aysan ka soo bixin ilaa daruuro iyo xaajo daran mooyaane. guriga ay laasimta ayaa u khayr badan oo karaamatul nisaa ay ku jirtaa. haweeneyda markay gurigeeda ka soo baxdo waxaa iftiinsada amba ku ugaarsada shaydaan. waxaa la wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi annisaa'u cawra, haweenku waa cawro. wa ina almar'a litakhruju min beytihaa, haweeneyda gurigeeda kama soo baxdo wamaa bihaa ba'su ayadoo waxba dhibeynin. markaa kadib shaydaanka uu ku ugaartaa. axad ma soo marto qoom ilaa way cajab gelisaa. haweeneydu waa inay labisataa dharka cad adag oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka magan gashaa shayaadiinta iyo wax la mid ah. waa inay haweeneyda loo oggolaadaa inay u soo baxdaa aadatulmariid, qof xanuunsan inay soo booqato. meelaha janaasooyinka inay timaado. waa inay ku dukataa masaajidada. وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبد في بيتها. الحجاب بشرعنا عتق من النيران. إن الحجاب بشرعنا عتق من النيران.